mas-uuliyiinta dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iska caabin ku sameeyeen weerar saacadihii hore ee saaka ay ku soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab saldhigga ciidamada dowladda ee magaalooyinka Bariire iyo Owdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Weeraradan ayaa la sheegay in ay ku jireen qaraxyo iyo sidoo kale weeraro ay geysteen maleeshiyada al-shabaab. haddaba sida ay wax u dhaceen Haruun Macruuf ayaa gobolka Shabeellaha Hoose qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolkaasi Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi. saaka aroornimadii afarta maxaan ku radaa aroornimo ama 10 saac oo maxaan ku radaa subaxnimo ama maxaan ku radaa loo yaqaan salaad subax intaan la gaarin ayaa nimankii nabadiidka al-shabaab waxay weerar ku soo qaadeen hal mar maxaan ku radaa degmada Owdheegle iyo deegaanka Bariire oo hoos yimaada degmada Owdheegle iyo waxay hubiyal kale ku soo weerareen ayagana sabiid iyo caanoole tuulooyinkaas salaliga markay ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed waa iska difaaceen. Sidee wax uga dhaceen Owdheegle iyo Bariire? Horta maxaan ku radaa meel dagaal ka dhacay khasaaro waa jira laakiin Owdheegle maxaan ku radaa waxay isku dayeen maxaan ku radaa inay difaac soo gaaraan mayna soo gaarin ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iska caabiyeen bartoodii maxaan ku radaa ma soo dhaafin laakiin Bariire maxaan ku radaa dagaal baa ka dhacay oo waxay isku dayeen maxaan ku radaa inay maxaan ku radaa gebi ahaanba macnaha inay dib geystaan laakiin hadee maxaan ku radaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagana way isdifaaceen haba hadee laakiin sabiidi caanoole ayagana maxaan ku radaa waa la iska difaacay laakiin hubiyal dhowr saal bay ku soo gimeen adigu arrimahaas ay jira. weeraradan ma waxay ahaayeen ciidan lugta oo infantry mise qaraxyana way la socdeen? qaraxyaa la socday sida Owdheegle oo kale waxay isku dayeen in qarax maxaan ku radaa ku soo bilaabaan kadibna hadee maxaan ku radaa dib waa jira adoo khasaaro meel dagaal ka dhacay horta dib waa jira laakiin qaraxyana waa jira. khasaaro intuu leeyahay marka? khasaaraha horta xaggooda uu badan yahay Owdheegle 40 ilaa 50 maxaan ku radaa ilaa hadda maxaan ku radaa miisaskooda waa daadsan yihiin hadee maxaan ku radaa nimanka argagixisada ah raadiyaal maxaan ku radaa isgaarsiina iyo niman amiirka meesha maxaan ku radaa kaga dhintay oo maxaan ku radaa waxaa lagu gartaa maxaan ku radaa isgaarsiinta iyo raadiyaasha maxaan ku radaa Bariire maxaan ku radaa runtii halkaas dagaal ayaa ka dhacay oo maxaan ku radaa waa la safar saaray salaligeeda kulli taa maxaan ku radaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhaawac waa jira dhimashana waa jiraan kulli taa insha Allah ta'ala gadaal baan soo sheegi doonaa. wax calaamada miyaa jiray maalmahan oo muujinaya weerar inay soo qaadayaan? calaamado badan oo anagu ka dignay waa jireen usbuucyadanba inay maxaan ku radaa haweysteen macnaha degmada Qoryooley inay haweysanayaan Janaale inay haweysanayaan Owdheegle inay haweysanayaan Bariire sabiid caanoole afgooy intaas oo dhan maxaan ku radaa in xogta sirdoonka maxaan ku radaa nasiinay sirdoonkeena ama shacabka aan ka helayna wuxuu ahaa inay intaas oo dhan maxaan ku radaa ay maxaan ku radaa damacsanaayeen waa sheegnay annagana waa ka dignay. waxaad wax yar ka hadashaa marka maamul ahaan waxa idin qorshaysan weeraradan dhowr jeer baa deegaanadan lagu dagaalamay oo qolobo kolba dhinaca loo riixay marka qorshihiinu muxuu yahay? ana maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ahaan annagu waxaan maxaan ku radaa kula talinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jawaanadan lagu hoos jiro iyo xerooyinkan inta carro la isku wareejiyo dhaxdiga maaha nimankan waxay bilaabeen xarb al-isaabaad waxay si waagi Baraawe 2014 saac u qabanib waxay bilaabeen ciidan shabaab oo hadda xoog la oo meel fadhi ma jiraan waxay bilaabeen ku dhufo ka dhaqaaq waxay la yiraahdo hit and run ama xarb al-isaabaad salaliga marka waa in maxaan ku radaa goobaha ay ka soo duulaan la tagaa oo ciidanka inta la taga laga soo noqdo hataa ma waa in maxaan ku radaa galabtii iyo subaxii iyo maqribkii iyo duurkii iyo casarkii mar walba ciidamada inay saas isu gudbaan loo baahan ilaa farsooli iyo turtolo ilaa dhulkaan oo dhan ilaa iyo maxaan ku radaa kuyubro iyo daamay ilaa sablaali ku tuwaari ilaa dhulkaan maxaan ku radaa ilaa dacaraha iyo maxaan ku radaa doonburaali iyo furugley ilaa laga gaaro maxaan ku radaa dhulka maxaan ku radaa fog marka salaliga marka annagu maamulka gobolka waxaa noo qorshaysan inay bisha Ramadaanka markay soo dhawo bisha Ramadaan inay ku talagalayaan waxay iska dhaadhiciyeen oo been ah inay janno inay galiyaan keedinta ama inay maxaan ku radaa saas ay aaminsan yihiin i'tiqaadaad nafsiya ama inay aaminsan yihiin waxaas waa been in laga hortago ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay foojignaadaan in ciidamada kale walaalaheen AMISOM ayagana gacanta la siinayo ayagana maxaan ku radaa inay foojignaadaan
aan lagu sugin macnaha xerooyinka dhexdooda marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya way isdifaaceen aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii oo hadda waxaa nagula sugan maxaan ku radaa hadda beriile taliyaha ciidanka lugta dawladda federaalka Generaal Biixi salaliga marka iyo taliyaashii oo dhanba waxaan leenahay inta dhimata Ilaahay u naxariisto maamulka gobolka Shabeellaha Hoose tacsiibaan u diraynaa qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyodeen ciidamadii maxaan ku radaa nimanka sharwadayaasha nabadiidka gacantooda ku baxay kuwa ku dhaawacmina runtii Allah dabiibo waxaan leenahay gudoomiyaha degmada Awdheeglana dhaawac yar soo gaaray oo fudud asna Ilaahay dabiibo insha Allah kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo u warramay Haarun Macruuf